السلام عليكم دمان أصحابتي إذا كحرن channel إنجنير علي وإذن سلامي سيمبانا كوجا لواحي وصولاتي فضلا هاتي تهي مركو هوري سبسكرايب سار هداد هوري وصارتي لايك تي شيرتي كومنتي نوغدادار وانو ديري كريم وانكم حسن تهي Manchester City waxay 3-0 kaga badisay Fulham. Goolasha waxaa u dhaliyay Soumare, O'Reilly iyo Haaland. Goolasha ay qaybtii hore dhaliyeen Soumare, Nicolo O'Reilly iyo Erling Haaland ayaa u horseeday Manchester City guul weyn 3-0 ku gaareen garoonka. Kooxda Pep Guardiola ayaa ciyaarta si xoog leh ku bilaabay iyagoo 2 gool ku hogaaminayay wax ka yar nus saac. Markii hore Soumare ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqadii 24aad isagoo dhaliyay goolkii shanaad tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray bishii hore. Kadib O'Reilly ayaa ka faa'iidaystay caawin uu bixiyay Soumare daqiiqadii 30aad si uu hoggaanka u laba jibaaro. Ugu dambeyn 6 daqiiqo ka hor dhamaadka qaybtii hore Haaland ayaa isna gool dhaliyay kaasoo noqday goolkii 113aad ee uu dhaliyo Manchester City isagoo sidaa kula mid noqday halyeyga weyn ee Colin Bell. Kulamada Arbacada la ciyaaray Arsenal waxay barbardhac la gashay Brentford. Sunderland waxaa 1-0 uga badisay Liverpool. Manchester City waxay 3-0 ku xasuuqday Fulham. Manchester United alla maxaa la dhahaa ciyaarta xalay waxay ahayd ciyaar cajiib ah. Manchester ayaa waxay la gashay West Ham barbardhac. Benjamin Sesko ayaa badbaadiyay Manchester. Thomas Soucek ayaa daqiiqadii 50aad u dhaliyay West Ham. Benjamin Sesko wuxuu Manchester goolka u dhaliyay 90kii markii lagu daray xilliga injury time-ka. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 0-0 kulan adag oo u dhaxeeyay West Ham iyo Manchester United. 49 markii daqiiqada maraysay gool ayaa u dhashay West Ham. Thomas Soucek ayaa hoggaanka u dhiibay meel u dhow gool ayuu kaga toogtay lugta bidix bartamaha xerada ganaxa. 55 markii ay maraysay gool ayaa u dhashay United markii 2 daqiiqo ka harsaneyd ciyaarta. Benjamin Sesko ayaa barbaraha u keenay Manchester United. Weeraryahanka ayaa gudaha u galay xerada ganaxa wuxuu ku toogtay lugta bidix. United ayaa ciyaarta barbaro keentay. Garsooraha ayaa afuufay seeriga dhamaadka garoonka London Olympic. Kulan aad u adag kadib West Ham iyo Manchester waxay ku kala baxeen barbaro 1-1 iyadoo goolasha u kala dhaliyeen Thomas Soucek oo u saxiixay West Ham iyo Benjamin Sesko oo u barbaro keenay ciyaaraha xalay la ciyaaray. Chelsea waxay barbardhac la gashay Leeds United. Manchester waxay barbardhac la gashay West Ham. Everton waa laga badiyay waxa looga badiyay 2-1 waxaa ka badisay Portsmouth. Fadlan hadaa wax uun ka faa'iideen subscribe iyo saar mahadsanidin.